ururka iskaashiga islaamka waxa uu ka kooban yahay in ka badan 57 dal kuwaasi oo ku yaala Afrika ilaa koonfur bari qaaradda Aasiya waxaana wadamada muslimiinta qaarkood ay kaalmaha sarsare kaga jiraan wadamada ugu awoodda badan caalamka waxaana muuqaalkani ku faaqidi doonaa 5 wadan ee ugu awoodda badan dunida muslimka haddii aynu ku bilowno kaalinta koowaad waxa ku jira dalka Pakistan waa wadanka kaliya oo muslim ah ee ku hubaysan quwadda nuclear-ka ciidan ahaan Pakistan waxa ay ku faataa mid ka mid ah ciidamada ugu awoodda weyn gobolka oo leh xaqiiqo iyo hub isku dhafan ayna taageeraan adeeg surdoon oo awood leh iyo dadaalo joogto ah oo lagu horumarinayo awoodda iyo warshadaha difaaca ee soo saara rasaasta iyo hubka sidoo kale Pakistan waa mid ka mid ah wadamada gobolka ee leh nuclear-ka ugu awoodda badan ururka xakamaynta hubka ayaa kaydka nuclear-ka ee Pakistan ka dhigay inuu yahay 140 gumacyada nuclear-ka oo lagu qiimeeyay kaalinta lixaad ee hubka nuclear-ka adduunka Pakistan waa dalka kaliya ee muslim ee ku hubaysan quwadda nuclear-ka waxayna ku jirtaa kaalinta 7aad liiska dalalka ugu awoodda badan caalamka kaalinta labaad waxa ku jira dalka Turkiga waa dalka kaliya ee muslim ee xubin ka haysiga ugu awoodda badan adduunka ee NATO waxaanu Turkigu sanadihii dambe sii horumarinayay warshadihiisa difaaca isagoona soo saara mid ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee ugu awoodda badan uguna horumarsan adduunka ee aan lahayn duuliyaha Turkigu waxa uu hadda ku jira kaalinta 11aad ee dalalka ugu awoodda badan adduunka waana mid ka mid ah dalalka ugu awoodda badan bariga dhexe Turkigu waxa uu saldhigyo waaweyn ka samaystay meelo ka baxsan dalkiisa sida Qatar iyo Soomaaliya si uu u sii ballaariyo awoodiisa juqraafiyeed kaalinta saddexaad waxa ku jira dalka Indonesia waa dalka ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka waana dalka saddexaad ee ugu awoodda badan dunida muslimka waxaanu leeyahay in ka badan 112 milyan oo qof oo u diyaarsan inay noqdaan ciidan taasi oo 40% bulshada dalkaasi Indonesia waxa lagu wadaa inay noqoto dalka afraad ee ugu dhaqaalaha badan adduunka marka la gaaro sanadka 2050ka waana mid ka mid ah dalalka dhaca koonfurta Aasiya ee dhaqaalaha ugu badan ku qarash gareeyay warshadihiisa difaaca kaalinta afraad waxa ku jira dalka Masar waa dalka ugu awoodda badan dunida Carabta waxayna kaalinta 14aad kaga jirtaa qiimeynta awoodaha ciidan ee dunida marka laga soo tago raxano kala duwan oo dagaalyahanaha iyo diyaaradaha qaada saadka ee xamuulka Masar waxay leedahay in ka badan 20 saldhig oo cirka ah iyo awoodda saadka oo ballaaran Masar ayaa lagu wadaa inay saldhig u noqon doonto xarun goboleedka lagu soo saaro diyaaradaha dagaalka ee loo yaqaan F-16 ee uu farsameeyay Mareykanka dadaalada lagu horumarinayo awoodda ciidanka cirka ee Masar waa fidinta falsafadeed ee difaaca hormuudka u ah casriyeynta iyo horumarinta dhamaystirka joogtada ee lagu wado ciidamada Masar kaalinta shanaad waxa ku jira dalka Iiraan waa dalka ugu saameynta badan bariga dhexe Iiraan ayaa la sheegay in ciidankeeda ay ku bixiso miisaaniyad militari oo dhan in ka badan 5.5 bilyan oo dollarka Mareykanka ah ciidamadeeda iyo agabkooda dalkan ay hogaamiyaan wadaadada Shiicada ayaa waxa lagu qiyaasay inuu ururiyo 19 nooc ah gantaalada jooga hoose ku duula ee loo yaqaan cruise-ka iyo gantaalada balastiga ah gudaha Iiraan waxa ka jira kooxo badan oo ka mid ah ciidamada qalabka sida waxaana ka mid ah ilaalada kacaanka islaamiga ah Iiraan oo askartooda lagu sheegay inay gaarayaan 125,000 waxa kale oo Iiraan ay ku guuleysatay inay samaysato kooxaha isbahaysiyaha oo taageera dalalka deriska ah sida dalalka Lubnaan, Ciraaq iyo Yemen iyo meelo kale Iiraan waxa ay samaysatay ururka Xisbullah ee ka dagaalama Lubnaan kaasi oo la tilmaamo inuu ka awood badan yahay qaar ka mid ah wadamada adduunka